maamulaha sharikadaha Dahabshiil Group oo ka qayb galay shirka IGAD ee ka qabsoomay dalka Djibouti ayaa kulamo la yeeshay qaar ka mid ah madaxda shirka ka soo qayb gashay waxaana uu ka waramay saameynta dhaqaale ee geeska Afrika ay ku leedahay colaadaha ka jira dalka Suudaan. dalka Suudaan waa dal Soomaali badan ay ku noolayd ama ku nooshahay annagu Dahabshiil ahaana waanu ka shaqaynaynay muddo aad u dheer oo la 30 sano gaaraysa saameyn weyn ba dagaalkaas nagu yeeshay dhammaan laamihii aanu ku lahayn iyo xafiisyadii iyo shaqaalihii noo joogay waxna waa xidhan yihiin waxna way qaxeen dhibaatada Soomaali wadaagtay oo dhammaan naga soo gaadhay madaxweynayaasha halkan joogaana way og yihiin qaar ka midana waanu la kulannay wixii dhaqaalaha iyo dadka qaxay iyo dadka masaakiinta ama Suudaanis ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama dad kale ajnabiga ha noqoto ee xuduudaha iyo wadamada Suudaan iyo Jaarkaba maanta la oran karayo way ku daadsan yihiin in wax lala qabto waanu u sheegnay saameyn weyn regionkana way ku leedahay nabaduna waa muhiim in la xoojiyo hadaan Dahabshiil lahayn arrinta aad iyo aad baan ugu dhiirigelinay madaxdii aanu halkan kula kulannay. maamulaha Dahabshiil ayaa sidoo kale ka waramay furitaanka isku socodka labada dal ee Djibouti iyo Kenya iyo faa'iidooyinka dhaqaale ay abuurayso waxaana uu yiri arrintaas runtii waa arrin fursad weyn u dhalinaysa dadka reer Djibouti iyo dalkan Djiboutiba waayo sidoo madaxweynuhu sheegay madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelaba arrintani waxay fursad u keenaysaa dhaqaalaha dalka Djibouti iyo dalka Kenyaba inay isku soo dhawaadaan hadaan Dahabshiil lahayn anagu halkan dhaqaale badan iyo investment baanu gelinay maalgelin badan Dahabshiil Bank ama East Africa Bank uu ka furan yahay Dahabshiil guud ahaan uu ka shaqeeyaa dalkan Djibouti muddo aad iyo u dheer uu ka shaqeynayay marka in dalka Kenya waa dal Dahabshiil ahaan iyadana sidoo kale ka shaqeyno oo laamo badan iyo hanti badan baanu gelinay in labadii dal ay isu furmaan fiisayaashii iyo baasaboorradoodii isu fududeeyaan taasoo macnaheedu tahay in dhaqaalaha labada dal ay isu soo dhawaadeen oo qofkii Djiboutiyaanka ah inuu maal gashan karo dalka Kenya u socdaali karo qofkii Kenyanka ahna uu dalka Djibouti iman karo maal gashan karo runtii dhaqaalaha adduunku waxa la xuduud ma laha wuu isu furan yahay horumar baa ka dhalasha shaqo abuur baa ka dhalata ammaankiisii kordhisa.